عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد من كسر جبتان مختار نور وهالكن مركز السلام يا أنا صاحبك سلمان يا مات بلوج سبيشال هذه هنا فريش ما كم وقت والله ماليزيا ما كان أسبتك أبو بشير أيام كسوقنا هاي وما أنت أنا قد قيمنا ديك أنا جاي سلمان إن شاء الله marka waxaad ka warbixinaynaa arrimo aad fara badan oo ku saabsan service-kan ama adeegan hadda loo qabanayo ummadda Soomaaliyeed waxaana ka warbixin doona ururka dhig-bixiyaasha Soomaaliyeed ama Somali Blood Donation Association oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho marka saaxiibayaal nala socdo waagartay ku soo dhawaada magacayga Cumar Cabdiraxmaan Cali Somali Blood Donation Volunteers إسهال قامياش اللي في جمعية الصومالي. دكتور محمد عبد القادر محمد member of Somali Blood Donation Volunteers. دكتور عدنان عبد الله حسين member of Somali Blood Donation Volunteers. member of مامل كميد إسبيتال كأبو بشير ومانت مرتدى لويا على صوبه. وحنا صوبة عي مامل كأبو بشير هو إسبيتال كفرا مجال المقدشو مرور بنا سيدنا يوسف برمنا وحنا شيء كان هذا البيت كميد إنه دين بهاي هاي وبلاسة وحلا حريرني ولكن مختار أو كمية بدك متدوعين دقيقة والقرب كده مجرين باهدا واحد بروحيو أركتها وحاسكالها أنا أقول هاللايف وحيلاقى هذا دكاترتي قربيه الجو يقاط نجا مكان وكله هاي كانت يسنا حال هين وكله ماشان المسؤول درسيين وكله هدف كنا حواي إلا بالبادي قف بيجوباهن قف كانوا كم حرنا دين جنسي هي أفكار وأنسين هاي ومو بهاي هوادي هذا ديجا قالنا قف كلا ديج وشنا قف كاسوار سكبارة سفعان لو بارا قف كسرور باشا awareness ما سمعنا وديج ممكن لشوبه فإذا كلا هلا حاجة عافمات iyo waxa uu muhiimsan ah in lagu badbaasho naf kale oo man axyaaha fakana ma axyaa naas jamiica oo aad qorana sheegaysa qofka lagu badbaasho in la mid ah dadka oo dhan asoo badbaasho marka hooleena waxa kamid ah qof dhimarabo ina dhiig u dhimarabo inuu san dhiig nooga dhiman macnaha inaan ku awoodno inaan usoo karno ana laga bilaabaya insha Allah markii ugu horeysan dhiig waa fursad aad iyo aad waxa badbaadinaysa qof u baahan dhiigaaga insha Allah qofkeenaya ma sha Allah warajeen insha Allah bulshada Soomaaliyeed daawanaysa inay ogaadaan baahida iyo processka si loo qaadanaya insha Allah ana idin bilaabaya insha Allah cabsananaya doonasha oo la rabo dhiigga inuu waxyaalo looga baahan yahay waxa kamid weydkiisa ama culaskiisa inuu na keenay contention age-kiisa oo kale ama da'diisa inuu na keenay 18 sano oo ka badnayn contention ilaa 60 amuhiima in qofka hijbigiisa oo na keenay 12 inuu na keenay nashada صح هذا عن كبه إنه كلا وذكره وحكمنا فارس كسيدي هبتت سبي وكلا كبهنا هبتت سيجا وكبهنا سيجا هدي فيجا وكلا وكبهنا نا 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 ليجي بهذا القاضي وحن سويا إن شاء الله رزلت جينا سويا رزلت جي مركز صوب بحق يا وجان إن شاء الله ليجي أنا كنت دقيق كرب يمكن waxaa hadda soo kordhay Salmaan waxa waaye dhiiggiisa AB plus waaye waxaan rabnaa dalab kale noo imaado AB plus isbitaal macaan ku yaala tradition la dhaay macaani Salmaan eh ديار موتة ديار ايه ان شاء الله ايه دكتور كيف هذا وعي نتيجتها تقصية دكتورة جدي وما شاء الله سيدي أنجا لنا نوطي ونليف ويقفكان ونشوفنا بس كم دقيقة هذا؟ waxay qaadanaysaa dhiiga 5 daqiiqo waxay qaadanaysaa qofka waxay ku xiran tahay gacantiisa uu shaqaysiyo Facebook كواد ayaa hadda ka gudubnay hadda waxa u gudbinaa insha Allah kursigan ayaa fariisanaya oo ugu deeqaya insha Allah dhiig la socod saaxiib na 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 ما شاء الله وحاول minutes less than 5 minutes I think so ده واحد هذا دقيقة ما شاء الله وكيف الأمر كمان يا شباب حسنت هذا بسيطة فيها سلعب يا مدام هول علص عنك صباحي كسر هو دكتور حسن سيجارة waxaan u mahadcelinayaa Mukhtaar oo ugu deeqay bukaankii dhiiggiisa Mukhtaar adigana waa mahadsan tahay kaalinta aad ka qayb qaadatay in la badbaadiyo naf qof bini aadam ah u baahan maanta dhiig inuu helo yani ayadoo laga yaabo inuu dhinto inuu dhiig helo darteed marka waa mahadsan tahay Mukhtaar mar labaad iyo mar saddexaad wallahi bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay yani tiimkaas oo dadaalayo isxilqaamay oo isku xilqaamay inay naf Soomaaliyeed badbaadiyaan inay garab istaagaan yani waxyaabo badan u baahan yihiin baahiyo badan ay jiro
يعني qof walba wuu saacidi karaa ama dhiig ha ahaato ama fan ha ahaato ama agab ha ahaato dhanka caafimaadkana caadiyan 120 bariba jirka wuu baxshaa oo macnaha wuu burburaa niyo cusub soo saaraa صح marka qofka hadii mar uu caadiyan wax la ogolaya marka qofka sanadkii 3 mar camal inuu shubo dhiig waxaan loo sameeynaa 120 bariba mid cusub soo saaraa marka dhiigaadii hore صح oo la bedel lahaa laga jirka burburin lahaa ayaa bixisay marka qofkaasna adigana refreshment ay qaadaysaa wax cusub soo galaayo صح qofkaasna ku badbaadinay si fiican dhiigana caadiyan sida gaariga kale oo leeyahay marka laga bedelayo xamal waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Guulid Cabdisalaad Qaari asxaabta media ka tirsan saaxiibadeyda toorada waxay wadaan waa naf badbaadis ayagana waxay kamid yihiin dadka oo qaranka dhinac uga adeegaya boos badan ka qaatay inay naf badan badbaadiyaan marka saaxiibadey waxaan leeyahay shaqadaha ka caajisina wallahi wax qurux badan saaxiibkeen dhiigoona oo soo hormaray ma sha Allah Salmaanna markii ugu horreysay dhiiga deeqaa waaye hadii isbitaalka diyaar u yihiinne dhiig waa loo dhigayaa si qof kale oo Soomaaliyeed si loogu gargaaro si fiican balse waa bogaadinaynaa walaalkeen Soomaaliyeed dhiigana waxa waaye waxyaalaha ugu horeeyo qof asoo dhakhtar ahaan oo qof kale ku badbaadi karo wax ugu fudud waxa waaye videogan wacyigelinta ka mid tahay qayb hawsha iyo nidaamka la maraayo safarkii dheeraa ما شاء الله wax qurux badan aragtida waxa waa in la sii hormariyo waana ga hormartay oo dhiigaada ka deeqay ma sha Allah xad dareemsa waxaan dareemaa qof Soomaaliya walaalkeen dhiig ugu deeqo oo ku faraxsan ma sha Allah shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa dadka dhiig u baahan dhiig ugu deeqo si mutadawacnimo daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayna insha Allah vloggeena maanta waxaan rajaynayaa in wax badan ka barateen insha Allah waxaan idin mahadcelinayaa mar walba sida ku xirantihiin vloggeedana don't forget to like share and subscribe for more videos insha Allah from Somalia aad baan ka mahadcelinayaa Somali Blood Donation Association iyo dhammaan isbitaalada noo suurtageliyay inaan fiidiyoyaasha aan duubno insha Allah waxaan u mahadcelinayaa idinkuna waxaan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan aad la socoteen barnaamijkayga tan iyo kula dambe assalamu calaykum